السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسلامي صاحبada ku xiran barteena YouTube galabtay waxaan ka hadlaynaa barnaamij ka bedelan barnaamijyadeennii hore fadlan haddaa hore noola joogtay janaalka noo share garee haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir subscribe noo saar share like iyo commentigan anaga iloobin biidnillaahi alkariim galabta waxaan ka hadlaynaa horta maxaan u sameynay janaalkan Soomaalida Poland maxaa danta aan ka lahayn inaan YouTube kan sameyno inaan xiriir la sameyno bulshada Soomaalida inaan asxaab ku yeelano adduunana saaxiib ku lahayn sabab maxaa u dooranay taas galabta ka hadlaynaa insha Allah annaga rumaanta waxaan ku noolnahay wadanka Poland muddo aad u fog ugu yaraan 30 iyo dhowr sano ah Soomaalida joogta wadankan ma lihin idaacad af Soomaali ku hadasha 2 milyan TV Soomaaliya ma lihin qof social activist ama social media aad u isticmaala waxa yaraaday marka xiriirkii aan la lahayn Soomaalida joogto wadamada kale ee Yurub America iyo qaaradaha kale adduunka iyo kuwa jooga dalkii iyo Afrika iyo eridas si aan u ogaano wax ka baxsan waxa aan ka ogaan karno familaadkeena dhexdooda macna waxa ku wada markii aan joogno Poland waxa xiriir la leenahay qof kasta familkiisa bas because idaacadda dhageysanayna Soomaali ku hadlayso aadan TV daawanaynin wadankii ku dhex yaalo xogtii ku soo siinayo gabi ahaan waxa xirmay xogtii guud ee aan la lahayn dalkii iyo dadkii iyo kuwa qurbaha jooga Soomaalida kala ahay iyo xaaladoodii iyo nololoodii wax ku sugnaayeen sidoo kale waxa meesha ka baxday annagii Poland joognay in la ogaado in wadankan Poland Soomaali joogto iyo in kaleeto meesha ka baxday ayadana waxa sidoo kale yaraatay wax habba yaraatay contact ama ogaal ama iska warqab ama xiriir aan la yeelano bulshada Soomaaliyeed ee Yurubta kala joogta si guud markii laga tago qof kasta iyo de familka uu ku xiran yahay iyo asxaabta gaarka oo markii laga tago waxa dhacday markii qof Poland jooga oo Facebook galo kaleeto asxaab waxa jirto public figures oo wax soo dhigdhiga ama akhbaar ka hadla markaad ku qorto commentatorada Poland jooga in lagu yiraahdo oo Poland madada ku noolaa way dhacaysaa in lagu weydiiyo because wax ka soo hadlaya mala adigi ma hadlaysid dad dhagool meel ku jiro shaqada gurigooda iyo haday cirka aadan marmar familkooda ay la xiriiraan noqon anagi dhama waxaan ugu dhaliyay marka inaan sameeyno bartan YouTube horta kow in la ogaado inaan meeshan joogno oo ay ogaadaan bulshada Soomaaliyeed ee nagu hareeraysan kuwa dalkii jira kuwa daba jooga intaba in Soomaali Poland joogto horta inay ogaadaan awalan lambar 2 qof kasta ee Soomaaliya ee Poland wax uga baahdo ama mid yar joogado ama mid dalkii joogado ama mid meel kale joogado horta inay ogaadaan in dad Soomaaliyeed degan yihiin wadanka Poland meesha ay kala xiriiri lahaayeen waxay weydiisan lahaayeen qaabka weydiisan lahaayeen in Soomaaliya meesha saldhig ku leedahay sida Foundation for Somalia iyo community-ga Soomaaliya jaaliyadda iyo ay jiraan in kaleeto inta dhan annagana in la ogaado ma hadeedin ka gaarto inta soo horta waxa noo saaciday kow Rabbi subhanahu wa ta'ala lambar 2 annagoo sameeynay janaalkan Soomaalida Poland iyo adinkana daawanayo oo saaxiibo aad u qurux badan oo sharaf badan nana gaarsiiyay in maanta meelo badan oo nala ka ogaado waqti dad badan oo la soo xiriiraan annaguna aad ugu faraxsanahay 100% in idinku xiriirno saaxiibadeena aad tihiin xiriirno wax isweydiino wax isu sheegno wax isu soo gudbino sidaas lama janaalkan waxaan sameeynay sanadii 2019 bishii 12aad sagaalkeedii dhowr video yar gelinay ka bacdi waa naga joogsaday sabab la xiriiro caqabadaha xagga bulshada meeshan ku nool wadankan ku nool qaabka baal ku soconayo qaabka kanaalka wax loo gelinayo wax looga hadlayo annaga dhexdeena waqti haynin oo markaan sameeynay aan waqti u sameynin laakiin ciil iyo yani
inaanan wax noo hadla oo contactis oo dadka bannaanka naga jira oo nagula soo xiriiraan ama annagu hadda u baahan ayaga aan kula xiriirna aysan jirin. sidaas awgeed waxaan ugu kaliftay inaan sameyno YouTube-kan meeshuu gaaraba. not big deal in kun ku xiran tahay, in 2 ku xiran tahay, in 100 ku xiran tahay, in 10 ku xiran tahay. annaga ahaan wax macna ma noo sameynayso. annaga waxaa macna noo sameynayo in markii aan u baahano in idinla xiriirno aan helayno meel idinka xiriirno, aduunkuna markaan noo baahatiin aa helaysaan meel aad nagala xiriirtaan. taas waa annaga muhiimkeeno. in 100 kun oo qof daawato iyo in hal qof daawado annaga isku mid ay noo tahay, because annaga waan soo gelinaynaa muuqaalka. adinka haddaad commentigin helnana waan usoo jawaabaynaa haddaan waqti u helno wixii macquul ah. intaan macquul ka gaari weyno ama waqtigu noo diidana si guuda u kormaraynaa jawaabihiina. qof kastana jawaabtiisa uu ka dhex arki doonaa video kasta aan soo duubno insha allah. way jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo walaala ah oo asxaabta ah oo na soo weydiiyay su'aalo fara badan. ayagana insha allah video soo socda si guuda ugu jawaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. ama aan soo fariisto ama dhalinyaro kale asxaabnayo oo ayaguna kamid ah barta Soomaalida Poland asxaabta ku xiran ama asxaabtan ka ah adminka ayaguna soo fariisan doonaan insha allah. sidoo kaleeto waxaan idinka codsanaynaa bishii la asaasay janaalka sanadkii labaad waxaa ka December soo socoto ilaa December inta laga gaaro waxaan idinka codsanaynaa inaad gaarsiisaan ilaa 20,000. okay. si annaga aan u gaarno inaan ka warqab la yeelano ama xiriir aan la yeelano qof kasta ee Soomaaliya ee social media isticmaala meel kastoo joogo. annagana aan u helno xog nooga timaada dibadda, aduunkuna aa u hesheen xog idinkaga timaada waddankan iyo erediisa. maadaama hadda ka horeysa jiran wax xiriira ama wax voice of social oo naga gudba ama naga baxa ama dad naga gaara. way jiraan dad badan oo caan ah waddankan soo maray laakiin ma aysan lahayn baro ama barkulanno dadka lagala hadlo. tan iyo intaan ku kulmayno muuqaalka xiga maanta waxaan jeclahay intaas inaan kusoo koobo sharaxaadii janaalka Soomaalida Poland. adinka oo saaxiibadeen ugu xirana aad baa idinkugu mahad celinaynaa. qof kasta ee Soomaaliya jecel inuu nagu soo biiro waa soo dhaweynaynaa 100%. fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar. dhammaantiin idinku isku duuban muuqaalka share noo dhaha, videogana like noo saara. tan iyo intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waa anagoo isku duuban oo idin leh nabadiino iyo nooli kulanta insha allah bikrim. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.